sida loo xareysto DV Lottery Program ama lotteriga lagu tago Mareykanka ama bakhtiyo nasiibka lagu helo fiisaha sanadkan 2021 waa uu furan yahay in la xareysto. Marka wuxuu soo bixi doonaa sanad soo socda bisha shanaad buu qof walba ogaa doonaa inuu ku guuleysto in kale. Marka sidee loo xareystaa waan rabnaa inaan ku hadalno. Pagekaas waa tagaysaa dvprogram.state.government oo loo soo gaabiyey gov.gov.government. marka pagekaas baad ku dhufanaysaa kadib waxaa kuu soo baxaya meeshaan aad arkaysid instructionkii tilmaamadii waxa weeye magaratay dadka xilligay baxayaan waa 2023 bay baxayaan qofkii guuleysta. sanad soo socda ilaa iyo sanadka kale ee ku xiga waxay marayaan process. sanadkaas 2023 bay baxayaan hadduu usoo baxo oo processkana ay maraan. mataqaan muhiimadda waxa weeye sawirada la iska rabo nooca ay yihiin size-kooda waxyaabaha caynka oo kale ah. marka waxaad samaynaysaa halkan dambe waa meesha aad ka bilaabaysid, laakiin kolay waxaan rabnaa inaan fiirino sawirada nooca ay yihiin aad u baahan tahay, tusaalooyinkooda, size-kooda, cabirkooda oo kale. okay sawirada hartaa inaad ogaatid. sawirada waxaa laga baahan yahay sawirkan oo kale ah oo loo baahan yahay, waayo waxaa laga hadlaa gadaashaada kale waa inuu background waa inuu sawirka cad yahay. background waa inuusan lahayn wax hoos ah uusan hooskaada kale for example nalka dhinaca kale kaaga yimaado oo hoos ku qabanin. dadka footooyinka sameeyo baad mataqaanaa la kaashan kartaa. maxaa la yidhahdaa anigana xagga commentiga waad igala soo hadli kartaa si aan footada aad adigu aad u baahan tahay aad haysatid oo lagu sawiray aan kaaga eego inay saxan tahay iyo in kale. sawirada qaar aan loo baahnayn waa sida sawiradan oo kale oo arkaysid qofka garbihiisa fiican loo wada arkin. ninkan oo kale ilmaha waa saxan yihiin, ninkan oo kale hoos baa jira gadaal dambe xagga hooska looma baahno sawirada ay ka jiraan. madaxa inaad koofi gashatid looma baahno. dumarkane waxay leeyihiin tusaalooyin kale ee ka duwan tusaalooyinka in mataqaanaa wejigooda u wada qarsanaado lama rabo. marka sawirada waa caynka. qofkii rag iyo dumarba qaybta commentiga waa igala soo xiriiri kartaan haddii aad u baahataan in igala jeegareeyo maxaa la yidhahdaa sawirada. marka waxaan fiirinaynaa insha allah qaabka loo xareysto waynu ka noqonaynaa sawirada. okay qaybtan hoose intriga sawirkan waa wax ugu muhiimsan markasta ogaada. waxaa kuu soo baxay waxaan meeshan ku qoran. waxa meesha ku qoran haddaad fahmi weysid calaamadan wareega ah oo falaarta ah baa ku dhufanaysaa si aad isaga bedeshid fartaan aad fahmi weysid. okay tan ayadan way badan tahay haddana mar labaad ku celinayaa. taana xoogaa way badan tahay markaan ku celinayaa ilaa iyo mid aad fahmi kartaa keenshid oo kale. tan aad la fahmi karaa. waxaa ku qoraysaa b r aan u malaynayaa no r maaha waa b for ben kale waa 3 waa b kale waa m e r e kabacdina submit baa leedahay. waa step 1. step kalena magacyada meesha ku qoraysaa first name macnaha last name ka for example magac u dambeeya haddii lagu yiraahdo maxamuud jaamaca ku qoraysaa meesha koobaad. first name ka halkaan ku qoraysaa magaca koobaad first name ka. then middle name ka magaca aabaha wey. last name waa magaca abuha. meeshaan kalena waa waxa loo yaqaano first name magacaaga, then middle name ka waa magaca aabaha dhexe magaca dhexe waa magaca aabahaaga. then wiil iyo gabar mid aad tahay hadda baad dooranaysaa. then waxaad samaynaysaa xilligaad dhalatay bisha waa inaad ka hormarisaa 0 haddii aad bisha ilaa iyo 10keeda bisha 12 aysan ahayn iyo bisha 11 iyo bisha 10. bisha 10 waxaa ka hormarinaysaa bisha 10 baa leedahay, bisha 11 baa leedahay. laakiin hadday tahay bisha 9aad oo kale 09 baa qoraysaa, hadday tahay 7aad oo kale 07 baa qoraysaa. maalinta aad ka dhalatay ma 25 ka dhalatay ma 19 ka dhalatay taas waa haddaad dhalatay koodeedana 01 baa ka hormarinaysaa 01 ama labadeeda dhalatay 02. haddaad 10keeda dhalatay laba lambar baa meesha galaysa markasta labada lambar waa inay meesha gashaa. sanadkaa dhalatay waa 4 god 2000 baa dhalatay kasoo qaad 2000 baa dhalatay 2000 haddaad dhalatay meeshaad ku qoraysaa waa ina 3 nambar ahaadaa. marka carruurta yar ma qaadanayo waxa weeye carruurta yar waa in mataqaana waalidkooda xareysta oo kula xareysta ayagana. marka okay halkaana waxa magaalada ku dhalatay city way you were born magaalada ku dhalatay hadday Boosaaso tahay, hadday tahay Muqdisho, hadday tahay Beledweyne, hadday tahay Hargeysa, hadday tahay Samareeb meeshaan ku qoraysaa magaalada aad ku dhalatay. kadibna halkaana waxaad ku qoraysaa waddanka ay ku taalo magaaladaas. magaalada ku dhalatay hadday Soomaaliya ka mid tahay waddankan waa Soomaaliya soma. okay
intaan dhanna waxa weeye waa yes sida u dhaafaysaa waayo waddanka u dhalatay waa la ogolyahay Soomaaliya ku jirta wadamada la ogolyahay inaad tagto yes calaamada way saarantahay saasa ku dhaafaysaa then halkan baa gelaysaa passport information halkan waxaa gelinaysaa magaca u dambeeya ee magaca saddexaad magacaada u dambeeya saddexaad magacaaga koobaad iyo magacaaga maxaa la yidhahdaa aabbaha middle nameka magaca dhexe waa aabbaha magaca u koreeya last ama family name last name ama family name last name waa magaca u dambeeya ee awowaha first name waa magacaaga koobaad middle name waa magacaaga dhexe oo aabbaha ah hebel 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 passport numberka halkaa gelinaysaa passport numberka Soomaaliya inta badan waxaa ku bilowdaa B00 wax noocaasa raaca B for Ben oo raaca kabacdina waxyaaba badan baa ku arkaysaa oo B00 wax noocaasa passport numberka inta badan Soomaaliya xagga bejkuru ku qoran yahay magacyada iyo wax walbaana waxa u qoraysaa sida uu qoran yahay passport numberkaaga country where you born waddanka aad u dhalatay Soomaaliya weeye halkaan ku qoraysaa sorry waddanka u dhalatay waa Soomaaliya ku dhalatay oo Soomaaliya sida meesha kore aan kusoo aragnay markii aan qoraynay city where you born country where you born okay halkaan aan maraynay sorry passportkan ka hadlaynay passportka waa kaasa passport numberka halkaas ku qoraysaa waxaa la rabaa passport expiration xilliga u dhacay passport Soomaaliya wax ku qoran xilliga soo baxay waxaa ka hooseeya xilliga u dhacay halkaan gelinaysaa passportkaaga hadduu xataa dhici rabo 6 bilood hadda kadib hadduu 5 bilood dhici rabo hadduu bil kadib hadda dhici rabo muhiim ma aha marka haddii passport aad haysatid halkaasaa gelinaysaa passportka maxaa la yidhahdaa bisha u dhacayo taariikhda u dhacay maalinta u dhacayo hadday tahay 8 meeshaa gelinaysaa sanadka u dhacayo halkaanaa gelinaysaa laakiin ugu bisha markaa qoraysid iyo maalinta markaa qoraysid waa inaad 07 ka hormarisaa country of issue passportka waddankee iskale waddanka iskale ee passportka aad ka qaadatay baa gelinaysaa hadduu Soomaaliya yahay Soomaaliya gelinaysaa hadduu Ethiopia ka qaadato Ethiopia gelinaysaa ma garat sida then waxaan oo dhan uma baahnid waayo hadda qofkaan passport haysan baa waxaan u baahan oo waddankiisa aan loo ogolayn inuu passport siiyo waddankaaga hadduu passport ku siinayo waa lagaa rabaa passport ma fahanti sida hadda Falastiin oo kale passport ma lahan wadamo waxaa jira passport aan lahayn ama dad mataqaanaa xaalad ku nool oo wadamadooda aan loo ogolayn wax xuquuq inay passport ay qaataan adi Soomaaliya haddaad tahay passport waa inaad safaaradda u doonataa waa lagu ogolyahay inaad soo qaadatid passportkaagana wuu shaqaynayaa okay xagga dambena footodii baa gelinaysaa footooyinka exchange ay galeen marka hore choose photo markaad tiraadid waxaad aadaysaa gallerygaaga markaad tagtid ama footada already uu ku diyaarsaneed qofkii kuu soo diray wuxuu kugu soo diray WhatsApp ama Gmail baa kugu soo diray laakiin markasta waxaa idigula talinayaa in passportka Gmail aad ku heshaan waayo markaas qualitykiisa aad buu fiicnaanayaa marka kabacdi choose photo markaad tiraadid gallerygaaga ku save garanaysaa gallerygaaga kala soo baxaysaa adoo mobilkaaga isticmaalaya mobilkaaga ka xiraysanaysaa then waxaa jirta wax loo yaqaano adresska kan koobaad booskan koobaad waa iska dhaafaysaa muhiim maaha address line 1 waxaa ku qoraysaa for example xaafadda mataqaanaa wadada laamiga irda hormarka oo kale marka almukarama haddaad sii qortid oo kale marka almukarama markaa ku qoratid okay say marka almukarama saana loo qoraa kabacdina wadada weeye kabacdina waxaa ku qoraysaa dhismaha nambarkeeda waxaasoo kale ku qoraysaa 202 iska leedahay kule inta badan adressaas ma jiraan laakiin waa lagu qoraa sanadka hore yar Soomaali jooga aan u xaray uu helay maasha Allah kule inkastoo Soomaali adress fiican uusan ka jirin wadada iyo dhismaha nambarkeeda Soomaali inta badan dhismooyinka nambar lama siiyo waa qori kartaa line 2 waa optional waa ka tagaysaa waxa muhiim ah magaalada aan ku nooshahay Muqdisho for example haddii taa kale ku qoraysaa districtiga degmada ka tahay kale haddii tahay degmada Kaaraan ama wax noocaas oo kale oo qoraysaa ama ay tahay kale Horwa ama degmooyinka oo qoraysaa then halkaan waxaa ku qoraysaa zip code ma haysatid calaamadana taabanaysaa zip code haddaad haysan calaamada taabatid meesha zip code dhan waa ka xirmaysaa uma baahnid waddanka aad adresskaas u yahay waddan haddaad Soomaaliya ama kala mukarama soo gelaysa ama wadooyin kamid ah wadooyinka xaafadaada aagaada mara ay guri nambarkaaga haddaad gelaysid intaa keliya waxaad dooranaysaa countryga waddanka aad Soomaaliya hadduu yahay hadduu Ethiopia aad dooranaysaa then country where you live today waddanka aad ku nooshaa maanta hadduu Soomaaliya qoranaysaa hadduu Kenya qoranaysaa hadduu Ethiopia qoranaysaa haddii Turkiga ku nooshaa Turkiga waa qoranaysaa phone numberkaaga halkan gelinaysaa then emailkaaga halkan gelinaysaa mar labaad waa hubinaysaa emailkaaga halkan gelinaysaa laba mar ku celinaysaa emailkaaga mar koobaad marka labaad waa hubin laakiin marka hore emailkaaga markaa gelisid at gmail.com markaa tiraahdo space waxba ha dhigin oo kaa diidaya
haddaan space dhihin waxa aadaa meeshaan taabo kana sidoo kale space waxbaa dhihin xuduudiina. Okay, so then waxa intaan waa inaad mid ka doorato. haddaad iskuul haysatid high school aad kasoo baxday, haddaad jaamacad kasoo baxday some university degree mataqaana university degree, haddaad PhD tahay PhD baad doctorate baad dooranaysaa, haddaad masters degree tahay masters degree baad dooranaysaa. intaan waa inaad mid ka doorataa midkii aad haysatid. Okay, then haddaadan guursan unmarried baa leedahay, haddaad guursatidna waxaa leedahay waa married baa tahay oo maxaa la yidhahdaa waxaa qoranaysaa maxaa la yidhahdaa married baa leedahay. haddii xaaskaaga ay yahay US citizen halkaana gelinaysaa, haddii US citizen tahay xaaskaagana halkaana gashanaysaa. laakiin haddaa married tahay xaaskaaga US citizen halkaasaa gashanaysaa. ma garat haddii aad maxaa la yidhahdaa kala tagteen qofkiinana waxa weeye divorce baa leedahay. ma garat haddaa wiliga guursan waa unmarried. kadibna arrimahan markaa married tiraadoo kale kabacdina waxa weeye waxaa jirta in qofkaas kale aad qabtaan sawir aad ka haysid isagana aad u xaraysid. halkan number of children baa gelinaysaa caruurta aad adiga maxaa la yidhahdaa aad haysatid. hadday zero ay yihiin zero baa leedahay, hadday laba ay yihiin laba aad leedahay. laakiin markasta wax lagaga baahan yahay dokumentiyadooda. wixii su-aalaha dadka commentiga ay igu soo weydiisaan insha allah waa idinka jawaabayaa. in badanna dad badan waan u xaray. submit baa la continue baa leedahay, kabacdina submit kulli waxbaa kuu soo baxay. hadda aniga maanta buubuuxin, laakiin marka continue tiraadid meeshas buu ku egyahay. kabacdina mataqaanaa waa submit garaynaysaa. waxaa kuu soo baxaya screenka verification number screenshot baa ka qaadanaysaa, gmailkaada ku dirsanaysaa. submit markaa tiraada intaas baa ku eg tahay. insha allah wixii su-aalaha qaybta commentiga aan idinka jawaabayaa. qofkii raba inuu ila soo xiriiro si gooniyana si ilaahay dartiisa oo caadi ah oo walaalnimo ah oo la shaqeynaya insha allah.